بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta halkaan ku sugoteynaa gudoomiyaha golaha iskaashiga dowladda madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Islaan Maxamed Madoobe madaxweynaha dowladda Jubbaland oo ka soo qayb galay shirkii afraad ee golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo shalay noogu soo gabagaboobay magaalada Garowe caasimadda Puntland. shirkaas oo la socoteen inay ka soo baxeen burbutiyeed bugle taabanaya geedi socodka nabadda Soomaaliyeed si badan xagga amniga, xagga dimuqraasiyadda, federalismka iyo in Soomaaliya ay xasisho, Soomaaliya inay nabadgelyo hesho, Soomaaliya dowlad wanaagsan inay hesho, Soomaaliya inay hor u socoto. ujeedada laga lahaa shirku intaas ay ahayd. waxaan ka shaqeynaynaa ma ahayn dumin Soomaaliyeed, waa dhisid Soomaaliyeed iyo in nidaamka federalismka lagu heshiiyey sida saxda ahayd iyo dhabii saxda ahayd uu qabsado. intaas ay wixii shirka ka soo baxay guriga khayr buu noogu soo dhamaaday. maantana walaalahayo oo runtii aan uga mahadnaqayno dhimaatinkooda iyo shaqada adag oo ay dalka u hayaan ayaan halkaan ku sugoteynaa insha Allah ilaa iyo is araggeena dambe. waxaan leenahay maca salaama dadkii iyo dadka aad ka timaadeena nabad ku gaara badina naga gaarsiiya. aad iyo maasante hadda waxaan kusoo dhaweynayaa madaxweyne Xasan Shariif Xasan Sheekh Aadan. iskala ilaahay suuqana keenay madaxweyne aad iyo aad kaaga mahadcelinaynaa madaxweyne Dr. Abduuli Maxamed Gaas madaxweynaha Puntland. runtii madaxweyne aad iyo aad kaaga mahadcelinaynaa soo dhaweyntii diirnayd oo reer Puntland aysan u kala harin gaar ahaan reer Garowe shacab iyo ciidan iyo dhammaan iyo waxgarad dhammaantooda runtii aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa sidii loo soo dhaweeyey iyo marxabayntii shirkii inta lagu qabtayna waxaan u rajaynaynaa guul. runtii shir aad iyo aad u fiican buu ahaa arrimaha Soomaaliya dhinacyo badan ka taabanayay midda ugu weyn ay tahay amniga iyo federaaleynta. Soomaaliya federaal ay qaadatay federaalkuna runtii wanaagiisa waa la arkay. waan u jeednaa mid